إنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون. الله wada naxariistay Sheekh Maxamed Jaamac Cali Qorsheel iyo Cabdiraxmaan Maxamed Diiriye ayaa loogu duceynayay kulankan oo ay soo qaban qaabiyeen bahda isboortiga iyo wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya. Labada marxuum ee geeriyooday ayaa la kala dhashay wasiihayaha xilka wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xildhibaan Khadiija Maxamed Diiriye iyo wasiirkii hore ee gaadiidka iyo duulista hawada Saciid Jaamac Cali Qorsheel. dhammaan marti sharafka ka soo qayb gala kulanka ducada ayaa siihayaha xilka wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo wasiirkii hore ee wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada waxay uga tacsiyeeyeen geerida ku timid walaalahood waxayna alle u weydiiyeen in naxariistiisii janno uu siiyo. Dr. Cali Cismaan Cali iyo aabaha isboortiga Cabdulqaadir Ibraahim Gacal Abkow oo ku hadlayay magaca bahda ciyaaraha iyo halyeeyada isboortiga ayaa qoyska ehelada iyo wasiiradaba uga tacsiyeeyay geerida ku timid marxuumiinta. jeedayna ilaahay ka baryayna dadkii dhintay in ilaahay uu jannadii firdawsa ka waraabiyo dadkii ay ka tageenna sabr iyo iimaan uu ka siiyo dadkiina ka soo qayb galayna ajir ilaahay inuu idinka siiyo waayo in laga qayb galo ina jannada ina ka waraabiso labadan qof oo naga hormarto walaalaha in ah oo anaga aan ka dab imaan doono ilaahu jannada firdaws qabrigana waasac uga dhig rabbi aan ku toobnay intay ka tageen samar iimaan Allah siiyo agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Isaaq Xaashi Jimcaale ayaa isaguna dareenka murugada la qaybsaday qoyska iyo ehelada ay ka geeriyoodeen marxuumiinta. wasiiraddeena Khadiija Maxamed Diiriye oo walaalkeed oo ku dhintay Muqdisho Cabdiraxmaan Maxamed Diiriye waxaan tacsiyeynaa walaalkeen Saciid Qorsheel oo walaalkiis Maxamed oo ku dhintay Canada saxamaynayo Allah naxariisto jannada Allah geeyo ajirkooda Allah nasiyo gadaashood ilaahay nama fidneeyo waxaan u rajeynaynaa in ilaahay uu ahla janna ka dhigo. wasiirkii hore ee wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada Saciid Jaamac Cali Qorsheel ayaa bahda isboortiga uga mahadceliyay kulanka ducada waxaana uu tacsi tiiraan la u diray siihayaha wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga xukuumadda federaalka Soomaaliya xildhibaan Khadiija Maxamed Diiriye taasoo la xiriirtay walaalkeed Cabdiraxmaan Maxamed Diiriye oo toddobaadkii hore ku geeriyooday magaalada Muqdisho. iskuuleeyahay waa wax walaaltinimo ah runtii si gaar ah waxaan ugu tacsiiyay wasiiradda oo walaalkeed uu ku geeriyooday maalmo ka hor magaalada caasimadda ah. waxaan aad iyo aad jecelahay inaanu si gaar ah u mahadnaqno gudoomiyaha xiriirka kubadda kolayga oo tacsi isaga xiriirkiisu kaleetaba ragga asxaabtiisa cadaani inay mar walba yihiin dad ehel walaal ah hawsha ay u hayaan qarankana runtii bartilmaameed ku noqday oo tilmaam fiican oo wanaagsan ah